xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco iyo inta badan culimada oo diinka waaweyn ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 9 arday oo dhameystay xifdiga Quraanka Kariimka. Munaasabadan oo maamuuskeedu aad u sareeyay ayaa lagu qabtay markaska taqwa ee degmada Qoryaale ee ka tirsan gobolka Togdheer. Maamulka markaska Qoryaale Sheekh Jaamac Ali Abdallah oo ka hadlay dufcadan ka qalin jabisay markaska iyo muddadii uu jiray ayaa waxa uu yiri waxay ku saabsan tahay arday dhameysay Quraanka markii hore oo ilaa 9 arday ah waana dafcadii afraad ee Quraanka dhameysay tiraahan waxay noqonayaan intii dhameysay markaas intii uu furmaa ilaa iyo 3 arday 24 hore iyo 9 arday maanta 3 arday weeye marka macadka tirada ardayda hadda ku jirta muwaadiniinta iyo 150 meelahaas bay gaarayaan waxaana uu furan yahay 3 sano iyo wax yar. waxaa inta badan culimada diinta xildhibaanadii salaadiintii iyo aqoonyahanka halkaasi ka hadlay ayaa u duceeyay maamulka macallimiinta iyo ardayda markaskan iyagoo dhalinyaradana ku booriyay inay Quraanka Kariimka xifdiyaan oo ay ku amal falaan. markaskan iyaga ayaa halkan soo gaarsiiyay dadaalay in aanu leecin oo hoos noqon ku dadaalay waana u ducaynaynaa ilaahay inuu jannadii geeyo ayaanu u ducaynaynaa. waxaan leeyahay oo ugu hambalyeynaya waalidiintii garatay ee ilaahay halkan soo waafajiyay awlaadooda in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dambigooda dhaafo waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay ilaahay bay soo waafajiyay goob khayr badan baa caruurtiina ilaahay keenay. macadkan macad taqwa iyo maamulkiisa iyo cidii wax gashatay iyo cidii fikrada lahayd dhammaantood waan u ducaynaynaa waan u mahadcelinaynaa mahadaalika. والله قفك ده مركي بس المفروض أيه دلنيرة المقال كده عارك العاية ماتا لا هيرك عاي مريسو وارنا ديات مارك محياتي الله مفرحه مركز كده مراكز كده أول وناكسن إنه الله سبحانه وتعالى وينفض ذيه قرآن ولا فهمه ولا بدقمه يا وحكس أو خير وكت خير كتير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. مركا واحد سنة يذكر حسن. عبد الرزاق عبد الله الشيخ عبد السكرت تلفيش كمان حبنا نسمعنا نسفيت شنن مقالة برعو.